Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa cayaarteena aan jecelnahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha. Waxaa caawa la dheelay kulamo xiiso leh. Manchester City ayaa waxay xasuuqday kooxda Burnley iyada oo dheelaysay kulan ka tirsan kulamada horyaalka Premier League. Manchester City ayaa 5-0 ku xasuuqday kooxda Burnley oo ay marti ugu ahayd Etihad Stadium. 2 gool uu dhaliyay Phil Foden, 2 uu raacsaday Riyad Mahrez iyo gool uu dhaliyay David Silva ayaa ka saaciday kooxda Manchester City in ay farqiga hogaanka Liverpool ay soo yareyso. Haddaba kooxda tababare Pep Guardiola ayaa loo diiwaan geliyay kulankan in Burnley ay noqotay kooxdii 17aad ee ay ka dhalisay 5 gool iyo in ka badan laga soo bilaabo xilli ciyaareedkii 2016 ilaa iyo 2017 markii uu macalinimada kooxda la wareegay Pep Guardiola. Manchester City waxay dhibcaha ay hogaanka Liverpool ku hayso kusoo koobtay 20 dhibcood iyagoo kala leh 83 dhibic ay leedahay kooxda Liverpool iyo 63 dhibcood ay leedahay kooxda Manchester City. Waxaana koobka Premier League la go'aamin doonaa garoonka Etihad Stadium ay ku dheeli doonaan kooxaha Manchester City iyo Liverpool hal kulan ay soo dheelaan kabacdi. Manchester City ayaa haddii ay badiso cayaarta waxay mar kale ku sii qasbi doontaa kooxda Liverpool inay sugto kulan kale. Laakiin hadday kooxda Liverpool ka soo badiso Crystal Palace Etihad Stadium markay imaatana ay gasho ugu yaraan barbaro, waxay u dabaaldegi doonaan horyaalka Premier League. Haddaba kooxda Manchester City shax waxay kusoo gashay 3-4-3-3 halka kooxda Burnley ay dheelaysay ayadana shax ah 4-4-2. Haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa goolashii iyo qaabkay u dhasheen. Brave. Haddaba asxaabay intaas waxaa kusoo xigo yaa ahaa xidigii garoonka. Phil Foden ayaa loo doortay xidigii garoonka. 2 gool ayuu dhaliyay, 3 jeer goolka toogtay, isla markaana dhammaystiray 29 ka mid ah baasaskii saxda ahaa ee uu baasay. Sidaas darteed waxaa la siiyay xidiga Phil Foden la dhaho ayaa wuxuu qaatay xidigii garoonka. Laacibiintii ceeboobayna waxay u badnaayeen Burnley. Intaasna waxaan kaga gudbaynaa Liverpool. Haddaba waxaa kulan kaloo xiiso la dheelay kooxda Juventus oo ayadana ka caraysnayd guuldaradii Coob Italia ee ay u geysatay kooxda Napoli kaga qaaday Coob Italia. Haddaba kooxda Juventus ayaa waxay ayadana ku badisay 2-0, waxaana goolka hore dhaliyay qaybta hore ciyaarta Cristiano Ronaldo, goolkaas oo ahaa gool kulaad, halka goolka labaadna uu dhaliyay ciyaaryahanka Paul Dybala. Juventus ayaa waxay gebi ahaan kulamada ay dheeshay ilaa iyo haatan ee horyaalka Serie A waxa ay ku heshay 66 dhibcood oo ka urursatay 27 ciyaarood oo ay dheeshay ilaa hadda. Waxaana ku xiga Lazio oo leh 62 dhibcood halka ay Inter Milan kaalinta saddexaad ku hayso 57 dhibcood iyadoo
ka 60 haddii ay badiso